salaadii ciida markii aan tukanay ayaan geedkii isa soo hoos taagay halkaa waxaa ku dhow African Village oo shaqaale badan oo reer waqooyi oo Burco iyo Hargeysa bale rag badan aan iska naqaan qaarkood baa degan sidii Abu Hurayra baan kolba dadka salaan yaroo diir aan salaamaa anigoo suruntaada say fahmaan sidii baa la igaga tegay salaad waa cid ku fahmi weeyay cid fahmi weeyay shilina ma haysto xataa maqaayadda aan koob shaah ka gacab waxaan sidoo warmalaad sidan ku qadimaysidee masaajidka iskaga noqo oo markii duurka tuko una adartaan marka duurka la qadaynayo kulay cid baa dib ku kaxayn doontee duhurkii baan marka ilaa sidii saakad waan qatanahay duhurkii baan ku sugay masaajidka waa la tukaday dadku wada dhar cusub ay xiran yihiin waa la wada xaragoonaya adigu waxa giirabta anigu ardayga yar waxaan sahay shilmaysto markii salaadii la tukaday baan hadana halkii isla geedkii istaagay sidii baa la islaamay waa la igaga dhaqaaqay duhurna Allahu akbar masaajidka iyo jaamacadda waxa u dhaxeeya 8 kilomitir mise 7 kilomitir meelaha oo taraboonka la marayaa digfeer baa la marayaa digfeer markaad ka gudubto waxaad galaysaa meel bacaadaho caguhu ku aasmayaan casar markii la adimay baan tagay adigoo sidoo gaajoonay jaamacadina waxuntii ma taalo waxaan sameeyay markaa surwaal aan lahaa baan dhaxda ku xidhay beerkaan u seexday salaadii casar markaan tukaday deedna markuu gabalkii dhacay Sheekh Maxamed tafsiirka maadaama waxaad ka dhawaajisay tafsiirka aad baan u jeclaa Sheekh Maxamed markuu tafsiir duubtayo amba maanta netka ku jira inta ugu badan Sheekh Maxamed markuu dhigayo inta badan waxa lagu arkaa isagoo tafsiirkii iyo suugaantii isku laraya Sheekh Maxamed ma waxa uu qarsoon abwaanimo oo gabayadan miyuu soo dhigta misaga abuura mise gabaygan inta ugu badan macnihii iswaafajintii ayaaba iyaduna arrin kala marka bal sheekhana baliyada qudheeda xaqan abwaanimada baliyada ka war geeraaru waygu ceelo waygu ciida dubaaro waygu caanaha geela way cir horay diraaco way cawskii madowey ilaahay cirka taagaye dayaxiyo cadceediyo xidigaa ku cidaadayo ilaahay caadi lahaaye dhulka caynkan u daadishay laba shay baan ugu jeclaa adduunyada inaan ka shaqeeyo qodob wuxuu ahaa inaan noqdo askari maasha Allah marka duruuftii wadanka markaa taalay baa aan ku nacay askarinimada iyo dulmigii iyo gardaradii iyo maxaan ku idhaa inaad diric bireed lagaa dhigto adiga oo meel kastoo halisi taalo iyo meel kastoo la dulmiyayo markaa taasi way ii cunami weyday ta labaad waxay ahayd inaan mucallim noqdo inta tan la iibiyo ayaa baasto dhimatay iyo bariis faalsa iyo waxbaa lagu soo bedelanayaa markaasaa jaacadii la keenaya waxaa dhacay bay ardaydu cunayaan ilaah baan ku dhaartay been kuu sheegi maayo mararka qaarkood bariiska nala siiyo laftiisa ayaa marka lagu siiyo in yaroo suugaabaa dusha looga darayaa laakiin waxaad is oranaysaa dixiriga iyo waxa isla eg bariiska بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونكسن داوديال meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan waa barnaamijkeena Furaha Islaamka waxa maanta inoogu martiya fadiilatu Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil sheekhana soo dhow shukran jazakallahu khayran su'aashiina koowaad bal waxaad xog kooban naga siisaa Sheekh Maxamed bal taariikh nololeedkiisa kooban bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين دمان أخيارت شرفت لحل كستو أي جوغان iyo goob kastoo ay joogaan oo ay ka dhageysanayaan dhawaaqayga
waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waa su-aal in badan aan ka soo jawaabay, iguma cusbo su-aashani maanta. ما شاء الله. maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan, waxaan dhashay taariikhdu markay ahayd 1959. ما شاء الله. كنت النبي. runtii dadku taariikhda ma qori jirin, laakiin hilaadinta qiyaastii meel miyiina waan ku dhashay. markii dambena haddii alla ka dhigo hargeysaan ku barbaaray, noloshayda badankeedana hargeysa حياك الله. ayaan ku qaatay. saddexdaydii dugsina hargeysa ayaan. ما شاء الله. dugsigeygii hoose iskuul la odhan jiray jenaraal daawud, dugsigeygii dhexana axmed gurey, dugsigeygii sarena iskuul markii dambe farsamada gacanta loo bedelay oo la odhan jiray xalane, hadda qoladan turkigu هاي قعنتك. ay gacanta ku hayaan, ayaan haddii ala idhaah ka baxay. intaa markaan ka gudbay shaqadaydii qaranka, waxaan ka galay burco. waxay taariikhdu markaa ku beegnayd 1982. ما شاء الله. waa xilligii maxaan ku idhahdo duufaanada أيوة. ay socdeen, dhaqdhaqaaqyada maxaan ku idhahdaa dalka ay ka socdeen ayaan ku beegmay. halkaasaan macallin ka noqday. dugsigii tacliintii aan bixinayay burca ayaan macallin ka noqday. dabadeedna markii dambe waxaan uga gudbay muqdisho. dalka dhammaantii hal jaamacad keliya ayuu lahaa oo kulliyado dhowra ka kooban. gobollada oo dhanna xamar bay waxbarashada u doonan jireen. run ahaan dee intii xamar deganayd mooyaane dhallinyarada, weliba siiba dhallinyaradan dee gobolladan waqooyiga ka tegi jiray, wax isira iyo maxaan ku dhaha ehel ay meesha ku lahayn ما يجري. ma jirin. halkii baan tacliinta alxamdulilah aan waktigaa 83 bilowgiisii ayaanu tagnay markaan shaqadii qaranka dhamaysanay. imtixaankii markaanu galay, nasiib aniga waxaa ii soo baxay dhakhtarnimada xoolaha, ما تنرجي بقى. veterinariga ii soo baxay. ما شاء الله. anigu filcel ahaan laba shay baan ugu jeclaa adduunyada inaan ka shaqeeyo. ما شاء الله. حياك. qodob wuxuu ahaa inaan noqdo askari. عسكري. ما شاء الله. واقري. marka duruuftii wadanka markaa taalay baa aan ku nacay askarinimada هذه. iyo dulmigii iyo gardaradii iyo maxaan ku idhaha inaad dee diric bireed lagaa dhigto adiga هذه. oo meel kastoo halisi taalo لغوني. iyo meel kastoo la dulmiyayo. marka taasi way ii cunami weyday. ta labaad waxay ahayd inaan mucallim noqdo. ما شاء الله. markaan muqdisho tegey waxaan arkay hal kulliyad baa jiri jirto macallinimada lafoolaa la odhan jiray. هذه. loolan baa jiray tacliinta ah oo talyaaniga iyo ingiriisku كتير. ay ناحية كناحية. maskaxda soomaalida هذه. ay ku loolamayeen. waxbarashadii dalka oo dhan waxaa gacanta loo geliyay talyaani. lafoolana haddii alla yidhaahdo aada iyo aad baa miisaankeedii hoos loogu dhigay. واقري. marka qualitigii uu lahaa macallimku, أيها هوسودا. xataa tacliinta markastoo uu u yimaado dalka gudihiisana ictibaar badan macallinkii ميار. muu yeelanin. waxbarashada lafteediina waxaa aada u rikaateeyey oo siyaasaddii ku badiyey talyaaniga, oo halkaa kulliyad keliya أيها الله. ayaa luqal ingiliisiya ku bixi jirtay. kulliyadaha kaloo dhan talyaaniga أيكم بيحكي. ayay ku bixi jirtay. marka labadii hami aan lahaa labadiiba way isa soo oodeen. واقري. xamar ehel iyo qaraabo iyo qof aad naftaada haddii la yidhaahdo habeen casho kaa bixin kara ميجري. ma jiro. dabeedna laba kulliyadood baa jiray. labada kulliyadood baa xarays lahaa inta luqada la baranayo. واقري. barbadowtikaa la odhan jiray, luqada talyaaniga la bartaa. واقري. 3 bilood baa la baranayay. واقري. 3daa bilood waa lagugu soo daynayaa magaalada. midhisanka iyo beeraha labadaasaa la xarayn jiray.
labadaa kulliyadood baa xarays waan soo bixi jiray anigu soo bixi jiro jiifkooda iyo cuntadooda ayay meesha ku leeyihiin kulliyadaha kaloo dhan isdabar bay ahayd noloshaada dabaraysa adaa dabaranaya maca veterinariga inta dee maxaan ku dhahaa qaybta marka luqada la baranayo 3 bilood ee luqada la baranaya anu 3 sanadood bay iga badnaayeen sababtoo ah waxaan ku jiray halkan khayr caadiya anigu markaa anigoo ka eegaya duruuftayda ardaygu 2 choice buu lahaa markuu imtixaanka galo labada kulliyadood aad rabto calaamadii markaa medicine-kan caalamadiye iyo beeraha medicine iyo beeraha ficlan dee dhakhtarnimadu waa hamigeyga saddexaad bay ahayd laakiin beeraha waxay igu kalifiyay hoyga 3 bilood meelan kaga gabado inaan helo si labada u helo iyo xarayso helo marka waxaa la sameynayaa category bay leeyihiin oo kulliyadaha waxaa ugu horeeya ardayda ugu sareysa waxaa la siinaya medicine-ka ardayda ku xigtana waxaa la siinayaa maxaan ku dhahaa xanaanada xoolaha ardayda ku xigtana injineeriyada la siinayaa beeraha saasay ardaydu usii kala hooseysa marka medicine-kii waan waayey beerihiina digrigii ayaa ka yaro sareeyey xanaanada xoolaha oo iyana dhakhtarnimaa ayaa haddii alla ka dhigo aan nasiib u helay marka waxaan isweydiiyey halkeed ku noolaanaysa 3 bilood ee talyaaniga la baranayo dadka reer waqooyiguna aad bay ugu yaraayeen dalka oo shaqaalun baa dee jiri jiray wax shaqo u tegey ayaa tegi jiray marka nin allah u naxariistay Axmed Shukri la odhan jiray oo hodheel Sinai haysan jiray oo reer Burca oo aan saaxiibeen wadaadadayda ka mid ahaa ayaa guursaday ninkaasaan 3 bilood nasiib weeshay inaan la noolaado waxa markaa haddana igu adkaatay maxaan ku idhahdaa gaadhigii aan ka soo raacayay gurigiisa oo xabaalaha General Daawud dushiisuu deganaa halkii maxaan ku idhahdaa daljirka dahsoonna waxbaa laga baranayay waa masaafo dheer go and back aduu tiina maraan soo lugeeya iyo maraan sii lugeeya iyo mar ilaahay cidii bixiyaba sidii baan hadii halka ka dhigo aan luqadii kaga baxay kabacdi jaamacaddii waan galay marada jaamacadda gasho hoygii iyo cuntada iyo wixii oo dhan waxaa iska leh haddii alla ka dhigo dowladda lahayd marka veterinariga intaan ku jiray waxaa la yidhaha raggu wuxuu ka sheekayaa ba-ooda dumarro baraadhahooda nin dee da-yarna waan ahaatiin ee maxaan ku dhowr iyo 20 jira markaa nolol aad iyo aad u kakan nolol qariib aanad maxaan ku dhaha gacantiisa biyo kaga dhargeynon xoogsanaynin oo haddana tacliin mukataf ah ay ku socoto oo markaad jaamacadda gasho waliba qaybahan xifdiga u baahan oo ama medicine ha ahaato ama veterinary ha ahaatee maalintii ugu horeysan jaamacadda galay 60 bay qaadatay jaamacaddu arday veterinariga 60kii arday baa nala shiriyey waxaana lagu yidhi haddaydinaan 20 saacadood shaqadiina ku jiri karayn 4 saacadood keliya hurdaa laga siinaya haddaydinaan 4 saacadood keliya hurdo haddaan isku qancin karayn iskaga jooga meesha daadna 4 saacadood waxay noqonaysaa 7 barka ayaa jaamacadda galaysa subaxnimo ilaa 12 intaa horta waa la dhiganaya waa la soo baxayaa waa la qadaynayaa 4 dib loogu soo noqonaya 6 laga baxaya macalinkan wax kuu dhigayaa waa macalin talyaaniya oo waxaa laga yaabaa shalay inuu Rooma joogay ama Milaano joogay dabadeedna garbayshan baa lagu keeni jiray macallimiinta xagga talyaaniga oo gurno fiican bay qaadan jireen iyo lacag fiican macallinkii shalay inanka talyaaniga u dhigayay ee dee luqada u dhashay ayaa adigana ku imanaya oo la rabaa inuu macallinku u noqdo wuxuu kula dhaqmayaa sidii nin luqada u yaqaano dee kama taale siday tahay marka luqad ka dhaxayso English-to kala maya hal eray oo Ingiriisiga isagu ma yaqaan ninkan talyaaniga kelmad Ingiriisiga ma yaqaan af Soomaalina ma yaqaan marka kaliya waxaad ku qasban tahay inaad talyaaniga adigu maskaxda u furto Allahu akbar
waxa lagu soo barayna waa 3 bilood iska buusiyo ayaa luqa Itaaliya lagu soo barayaa been kuu sheegi maayay maalintii ugu horeysay waxaa la soo samari gareeyay semesterkii ugu horeeyay bishiisii koowaad 4 sano secondary wixii aqoon kaga xiran medicine ayaa la soo samari gareeyay buugaag inta la leeg bana loo dhiibay oo Talyaani ah macallinkuna waa Talyaani macallinkii chemistry-ga ayaa soo galay macallinka chemistry-gu ciwaanka sabaradu ku qoray oo Talyaani ah dabadeedna miiskii kursigu is hor dhiganaya lugahana way saaranaya waa lecture buu jeedinaya muxaadara waa aqriyaya isagu buugga rogrogi maayo waa aqriyaya mawduuci markuu qoro ayuu iska daldalmaya 2 hours ayuu hadlaya buuggiina waa lagu dhiibay kii markaa 2 saacadood buu haystay oo xiisad waliba 2 saacadood wey kii labaadba markaan saacay ka soo noqonay soo galay isna wuxuu samari garaynaya biology laakiin Talyaani buu isna ku hadlaya wuxuu wada Talyaani haji deedna uu hadlay iska baxay buugaagtii baan qaadanay gurihii baan ku noqonay waan qadaynay waan iska meelmeelanay waxaan isku daynay inaan bal eegno ilaa inta safxadood ee ninkii akhriyay wuxuu akhriyay 1 saac 2 saac gudahood ayaa 120 safxadood buu akhriyay Talyaani kii kalena 180 safxadood buu akhriyay wala rabay berina inta leeg buu akhriyay galabtii baa ku sugaysaa oo xiisad kala ah oo isna 2 saacadood habeenkii baad markaas ku soo baxdeen 13 oo ka ugu yari 120 safxadood yahay laga rabaa inaad kaga tag luqadiina waxaad ku tahay faqiir 3 bilood kaliya lagu barayay luqada waxa waqtiga ka qaadaya ereyada inta dictionary-ga ka eegayso tiknoolajiyada casriga ma jireen ereyga ku qabta waa inaad maxaan ku rahdaa dictionary-ga Talyaaniga kutubta aad ka eegto intaad baarayso intaad qariyayso intaad baarayso badan silic iyo darxumo ayaan ku dhamaysanay waxba hadaliyaan kugu daalinay markaanu 1 sano marayno 60kii waxa ka soo haray 30 waa la kala yaacay way kala go'day rag baa waa shay ninka inta waa shay deedna sanadkii labaad baanu gudubnay maxaan ku rahdaa vocabulary Talyaaniga noo kordhay qaabkii loola mucaamalayay maxaan ku rahdaa tacliinta noo kordhay loo siyaasadeynayay sanadkii labaadna waan ka gudubnay marka mar haddii 2 sanadood aad ka gudubto waxaad u gudbaysaa haddii aan la yiraahdo 2 sano dambe oo seniorki ayaad noqonaysaa mushkiladaha ugu badan ee Talyaanigu uu yaqaanayna casharada uu 2 sano hore macallimiinta ku qoran inta badan waxay ku oran doonaan waxa ku arki doontaan kuwa dambe ayaa idin sharxi doona ayay ku oranayaan kuwii dambe markaa tagtana kuwii dambe kuwii hore ayaad ku soo dhigatay muu ku oranay cajiib marka aduu naftii ilaahay dhamaysatay kaadiban haleeli weyn marka horta waqtiga aan veterinary-ga dhiganayay noloshayda dhacdooyin aanan hadii jeer ilaabi karin baa igu soo maray jiifka waan lahaa buugaagtana waan lahaa haddii alla ka dhigo cuntadana waan lahaa laakiin mushkiladdu waxay ahayd marka cuntada loo keeno iyadoo qaydin oo bakhaarka la dhigo jaamacadda ayaa bakhaarka isla habeennima ayaa gawaari dabada loo gelinayaa dabadeedna waxaa la geynayaa warshadii baastada iyo kuwaas ay Soomaalidu lahayd ma garanaysaa ayaa inta tan la iibiyo ayaa baasto dhimatay iyo bariis faalsa iyo waxba lagu soo bedelanayaa markaas jaacadi la keenaya waxa dhacay bay ardaydu cunayaan ilaah baan ku dhaartay been ku sheegi maayo mararka qaar kood bariiska nala siiyo laftiisa ayaa marka lagu siiyo
in yaroo suugaa baa dusha looga darayaa laakiin waxaad is oranaysaa dixiriga iyo waxa isla eg bariiska caana boodho yaroo kuwii maxaan ku dhahdaa kartoonka ku jiri jiray kan maxaan ku dhahaa karatoonta lagu soo sibirka oo kale caana boodho lagu soo shubi jiray caana boodhahaasaad koob leedahay koobkaasaad ku daraysaa dusha kaga daraysaa biyihii dabeedna dixiriguu sabaynayaa dee caanahana kor soo qaadaya dixirigii baad iska xaadhaysaa cajiib adoon ku dhacday waa gad dixirigii baad xaadhaysaa been kuu sheegi waayo cajiib ardaydii aan iskuulaadka ahayn malaha hadda waxay ka dhegeysanayaan markaad iska xaadho ee ood suugadiina way raacaysaa moogtahay suugadii yareedaad lagugu soo daray baad iska xaadhaysaa banaankaad ku daadinaysaa indhahaad isku qabanaysaa iska cunaysaa ilaa darxigiisii wixii dee un korka soo maray mooyaane eed iska daadisay mooyaane wixii kale soo hadhay waad iska cunaysaa waxaad ka soo qaadaysaa in aanu dixirin cajiib aanu ku jirin waxyaalaha noogu daraa waxaa ka mid ahaa 2 sano hore dumar baa noo karin jiray cuntada meesha marka wax laga cuno meeza ayaa la yiraahdaa meesada waxa weeyaan waa kijadii islaan xawriig lay looran jiray Allah naxariisto kolay markay inay dhimto malanayaan ayaa meesha kaaba ka ah sax dharihii halkan ay u yaalaan dhari weyn ama disti weyn oo caana boodhaha lagu qasayna halkan ay u taalaa waa meel kulada xamar cuntadiina way hoos taallaa geesahay ka taallaa waxaa dhidid ka dhacaya waad yaabaysaa islaanta intay saa tiraahdo ayaa dhididkii wuxuu ku daadanayaa dherigii ama caanaha ha noqdo ama maxaan ku idhaahdaa raashinkii ha noqdo intay saa tiraahdo ayaa intaani banaanka ma gaadhsiin baad arkaysaa iyadoo isagoo ileen daaqadii baa taaginta ma garanaysaa oo ku daadanayaa laakiin waxaad kaga maaranto ma haysatid waxaad kaga maaranto ma haysatid marka cuntadu waxay macaan tahay markaad u baahan tahay darxibaa yeelatay waxaa igaga sii daraa hal qisoo kale ku raacinaya maalin maalmaha kamid waa ciid carafa ciid carafa dadkii reer muqdisho ahaa ee nala dhigan jaamacaddu iyagoo way kala fasax tageen guryahoodii baa dhadhowtay hadda guryahoodii baa dhadhow dhowr nin oo reer waqooyi baan ku soo hadhnay marka waxaan go'aansaday mar hadday carafo tahay inaan magaaladii u dhaadhaco caasimadda oon la soo tukado dadka iidda oo dadkaa reer waqooyiga ah haddii aa la yidhahdo meesha ku badnaayeen aan la soo tukado kolley waxbay qalanayaan muxuu la soo cunto bal maanta deedna salaadii subax markaan tukaday baa shilin baan haystay shilinkii baan taxi ku raacay gaarigii la raaci jiray waxaan ku idhahdaa sitaydii masaajidka sheekh cali suufi raxmatullahi caleyh ayaan tegay oo aan ku tukan jiray masaajidka markaa geed mirimiri tan maxaan ku idhahdaa geedkan hindiga ay yidhahdaan mirimiri bilaadii inagu ayna baa hortiisa ka baxa laamida agteeda salaadii ciidda markii aan tukanay ayaan geedkii isa soo hoos taagay halkaa waxaa ku dhow African Village oo shaqaalo badan oo reer waqooyi oo Burco iyo Hargeysa bale rag badan aan iska naqaan qaarkood baa degan sidii Abu Hurayra baan kolba dadka salaan yaroo diir aan salaama anigoo suruuftaada sidii baa la igaga tegey salaadii waa ciduu ku fahmi weyday shilina ma haysto xataa makhaayadda aan koob shaah ka cab waxaan sidii warmalaa dee sidan ku qadimaysidee masaajidka iskaga noqo oo markii duurka marka duhurka la qadaynayo kolley cidun baan dee ku kaxayn doontee duhurkii baan marka sidii saakaad waan qatanahay duhurkii baan ku sugay masaajidka waa la tukaday dadku wada dhar cusub bay xidhan yihiin waa la wada xaragoonaya anigu ardaygayga yare waxaan sahay shil ma haysto markii salaadii la tukaday baan haddana halkii isla geedkii baan istaagay sidii baa la ii salaamay waa la igaga dhaqaaqay
duhurna allahu akbar masaajidka iyo jaamacadda waxaa u dhaxeeya 8 kilomitir mise 7 kilomitir meelaha taraboonkaa la marayaa digfeer baa la marayaa digfeer markaad ka gudubto waxaad gelaysaa meel bacaadahoo caguhu ku aasmayaan casar markii la adimayay baan tegey adigoo sidii u gaajoonaya sidii u gaajoonaya jaamacaddina waay wax runtii ma taalo waxaan sameeyey markaa surwaal aan lahaa baan dhexda ku xidhay beerkaan u seexday salaadii casar markaan tukaday deedna markuu gobolkii dhacay ayaa buulal yaryaroo dumar baa haysan jiray ayaa anoo daandaana baan haaf digira oo amaah aad kasii cunay oo buug yar baa iga furaayo if haddii ilaahay wax soo geliyo ama saaxiibadayda kale wax soo geliyaan jeeb wadaag baan ahay sidii baan haaf digira maqribkii markii aan tukaday marka dhib badan ayaa halkaan naga soo martay xaalado badan allahu akbar sheekh maxamed allah ku barakeeyo dee waa dareen leh iyo taariikh leh wax u baahan allah ku barakeeyo sheekhana bal sheekh maxamed keliya veterinary haddii dadka u fasirno kale waxa weeye caafimaadka xoolaha sheekh maxamed ku shaqeeyey waan ku shaqeeyey weliba duruuftii ugu adkayd ayaa iga soo martay mar waxaa waqti dheer bay kugu qaadanaysaa ninkaygii jaamacadda ka soo baxay ee digriyadii ugu sarreeya waddanka markaa haystay dee maxaan ku idhaha bacheloorkan baa ugu sarreyn jiray dalka master waxaa jiri jiray aidam jaamacad la odhan jiro keliya baa ahaan jirtay inta kaloo dhan marka darajada ugu sarreysaa waxay ahayd bacheloorka waxaan islahaa marka hadday bacheloorkaa dhammayso maxaan ku idhaha cilmi loo baahanya aada baratay dalkaagana udub dhexaadkiisu uu xoolaha yahay haddii alla ka dhigo shaqo fiican baad heli doontaa haddii alla ka dhigo culayskii aad soo martay waad ilaabi doontaa intii tacabka ku gashatayna marun baad haddii alla ka farxin doontaa waxaan ka filay waxaan ahayn ayaa igaga soo baxay oo waxaa laygu qoray mashruuc la yidhaha gosh iyo gendiga horaan uga sheekeeyey mashruuc la yaablo riwaayada ninkigii jaamiciga ahaa goshigii gendigu waxa weeye dhuug iyo dhukaan baynu inagu nidhaahnaa waa duqsi xoolaha cuna oo xanuun qaadsiiya marka dhuuggu waxa weeyaan waa duqsiga dhukaankuna waa cudurkii marka dhuug iyo dhukaan kii keenayey wuxuu keenayey bay ahayd waa balcad baa laygu qoray 1,600 shilin weeya mushaharkaygu 1,600 shilin qolka aan ku jiro oo niman dhalinyaro aan saaxiibnay wadaadaan iskula jiray aniga waxa igu soo hagaagayey 1,400 shilin baa qolka nalaga kireeyey qolka 1,400 200 baa isoo haraya haddaan bixiyo dee 200 baa isoo haraya waxaa la rabaa aroortii inaan kalaho oo aan tago balcad oo 30 kilomitira oo gaadhi raacayso gaadhihaa sitee baad raacaysaa oo lacagta mad bixiyayso lacagta bixis maya ma qabaan waad ka soo rooxaysaa aroortii waxaa laga rabaa 7 inaad tagto 12 maya waxaad ka soo baxaysaa 4 galabnimo waa garta waxaa laguu dhiibayaa sallado yaryar oo shabaga baa laguu dhiibayaa waa garta dabadeedna waxaa lagu leeyahay 5 kilomitir ku rakib xabadiiba isu jirsii habeenkii ayay xooluhu daaqaan maalin ma soo baxaan lo'daas sababtoo aabba halkanaa cunaya dee neef habeen daaqayana wax walba u halis dee waxaa jabisadii baa jirta oo maskii baa jiro oo meesha waa meel dee webigii baa maro walba waraaq ma garanaysa waxaad dhigaysaa shabagii baad daadinaysaa oo yaro taagtaagan marka wax yaruu duqsigu jeceliya baa gudaha ku jira duqsigii baa markaa ku daadanaya markuu galo kama bixi karo aroortii baad daadinaysaa 3 galabnimo ayaad ka soo ururinaysaa duqsigii oo sumoobay oo dhintay deedna waxaa lagu odhanayaa waxyaalaha riwaayadda aan la yaabay
niyad jabka igu sii riday wixii markaan soo laayay duqsigii aan soo urursaday aan salaahayga soo qaatay yaa waxaa laygu yidhi kala saar dhadig iyo laboodkiisa adeer waaban dilay maxaad kala saarkiisa maxaa macne ku jiraba maradi baalki marka bahalkanu waa bahal habaar qaba oo isagu maalintiiba shaqaystaa habeenkiina uu seexda markaas xooluhu habeenkiiba hadda la ka dhigo intaasaa naf markaas xooluhu way wada suuqan yihiin wada qalalan yihiin dee waa xoolo habeen daaqayo deedna ninkii maxaan ku idhaahdaa agaasiminka ahaa meeshan gashiga gendiga ayaan u imi oo nin aada u qiimo badan buu ahaa oo macquula waxaan ku ihi warheedhe waxaan ahay nin dhakhtara waxaan ahay nin gobol dheer ka yimi adduunkan qaataana waa intaa hawshanna caruurta yaryar ee 5 jirka ah baa qaban karta in maxaan ku dhaha shabag la dhigo oo la soo qaado wax macnoo weyn oo dee anigoo kale iyo waqti iskaga bixiyo iyo wixii dee maxaan ku dhaha tacabka laga gashadayna maaha waxaad yeelaysaa niyo 1600 in qaato 800 adigu qaado 800 anigu aan haddii ala idhaha masaarifaysto hawshaa cid waliba waa qaban karaysaa iga footi waayahay bay ugu yiraahdo ninkii sidii baan haddii ala idhaha ku heshiisay deedna suuqaan dilaal ka noqday suuqii muqdisho iyo dilaal ceel gaabti waa garad ayaan dilaal ka noqday halkaas naftayda aad ku badbaadisay ka dabaray waa garad waxa iigu daraan jirtay oo aabahay raxmatullaahi calayhi macallin quraan buu ahaa mu'adinna waa ahaa nin adduun badan haystana ma ahayn ilaa dhowr iyo 20 carruurna uu dhalay 2 nin baa iga waaweynaa inta kale iga yaryahayeen mar walba waxaan wadnaha farta kaga hayay inay carruurtaasi intay soo muraaqato yidhaahdaan walaalka baa jaamacad ka baxay oo shaqeeya inay xamar igu yimaadaan anuu koob shaah ka bixin karay inay xamar igu yimaadaan taasaan ka subxaanalaysan jiray naftaydu baan dabarayay marka silic iyo durxmo intii aan jaamacadda ku jiray waaban dee maxaan ku idhahdaa waan qarsoonaayo xilima saarayn marka dhib badan oo aan hawl yarayn ayay haddii la idhaahdo markii dambe ka soo baxay allah yubaarik sheekh jazaak allah khayran dee waa waraysi qiimihiisa wata bal sheekhana sheekh maxamed keliya maaha caafimaad oo waynu geli doonaa bal dhakhtarka qeybta kale ee iyada caafimaadka bal sheekh waxaad ka warantaa علومta shareecada bal sheekh maxamed xaquu ka qaatay culimadii uu ka qaatay maadaama uu nin sheekh oo dacwadda in badan dee 50 sano iyo 40 sano u dambeeyay dacwadda ku jiray inuu bal sheekh maxamed yada xagee ayaad yada culimadii aad ka soo qaadatay iyo goobi aad badneed xagee horta alxamdulilah culimadii dalka joogtay markaa Hargeysa wixii intii uun culimo wax dhigi jirtay wax yar baanan kala kulmin علمي التفسير كان أدو شعلاء وحن كده جيستي صدح ذي والد بقى الشيخ قبيب يا شيخ عمر يا شيخ إسماعيل صدح ذي علماء يا هايين القرآن كان أباهي بايدي ومعلم القرآن بها لوضع ذي والدك لنا وحي إيه أقرين تفسير كي اللغة نحو ذا يكواس وحن أدو قد جيستي وكلا الشيخ عبد الرحمن كاري رحمة الله عليه isna tafsiirku aad u aqri jiro waan kala kulmay waxa kale oo aan tafsiir ka dhageystay Sheekh Ibrahim Cadde sheekh la oran jiray oo dhowr jeer ku khatimay Hargeysa tafsiirka markii dambena Muqdisho wareegay raxmatullaahi calayh marka dhammaan culimadii ani waxay dhigi jirtay nina kama nool waxa aad iigu tabcay nin sheekh oo Sheekh Yuusuf Maxamed la oran jiray waan xaas lahayn oo mucjiso aha gacmihiisa afarta maxaan ku baabaco midna suul muu lahayn afar farood iyo lugaho 4 iyo 4 ayuu lahaa tuur yarna wuu lahaa sanqadana wuu ka hadli jiray ninkaasaan kutub fara badan axaadiista aan ka qaatay marka aduu raggii عيدي كمان نورا الله يرحمه عيدي كمان نورا الشيخ محمد تفسيرك ما دام واحد كذا واجسي تفسيرك آد بانو جعله
sheekh maxamed markuu tafsiir aad duubtayo amba dee maanta netka ku jira inta ugu badan sheekh maxamed markuu dhigayo inta badan waxaa lagu arkaa isagoo tafsiirkii iyo suugaantii isku laraya. bal sheekh maxamed ma waxa uu qarsoon abwaanimo oo gabayadan miyuu soo dhigta misaga abuura mise gabaygan inta ugu badan dee macnihii iswaafajintii ayaaba iyaduna dee arrin kala marka bal sheekhana bal iyada qudheyda xaggan abwaanimada bal iyada ka war. jumcaalo run ahaan ficil baa ii geeyey af soomaaliga barashadiisa. waa gartay ficil ayaa ii geeyey. waa gartay anigoo dugsiga sare istaandar foomon ah ayaa masaajidka masjid nuur suuqin garyare oo markaa hadda aan dabaq ahayn dhulkuna doo cidlo yahay sharaaclay dhulka aan cidiba joogin ayaa waxaan ka aqriyay kitaab uu ii aqriyay raxmatullaahi caleyh sheekh yuusuf محمد kitaabka waxaa la odhan jiray taaj usuul jaamic oo 5 mujallada markaan ka naqliyey ayaan markiiba aniguna isku dayay inaan naqliyo markaa dhalinyaro ila aynayay dad iga waaweynba masaajidka ayaan ugu aqriyay bacda casar. waa gartay maalin maalmaha ka mid ah cashar aan aqriyayay baa aad la igu maadaystay. waa gartay odayaashii maxaan ku raadey reemiga ahaa ee kitaabka dhageysanayay af soomaaliga yaqiinay ayaa aad u qoslay. waa gartay anna markaa waxaan soo arkay wax lagu qoslo inaanan ku hadlin. waxaan soo maray masaladan uu kaga hadlayo kitaabku ma la iibin karaa haddii aan la yidhaahdo biyaha faxliga awrka oo kale biyihiisa awrku inuu hasha kuu abaahiyo lacag ma laga qaadan karaa ayaad fatwadaas markaa kitaabkay ku taallaa ereygaan isticmaalay ayaa qaldanaa. awrku markuu hasha orgeynaya baan idhi awrku markuu hasha orgeeyo orgeyntaa miyaa lacag laga qaadi karaa ninkii odayaashii dadkii show orgeynta waxa iskala riyaha geelana abaahi baa la yidhaa halkan abaahi ka isticmaali lahaa ayaan orgeyn ka isticmaalay. markaasaa aada loo qoslo hadhow markii aan kitaab ka baxay baan ku idhi maxaa dhacay markaasaa la yidhi way kaa qaldan tahay xooluhu way kala leeyihiin abaahaa jirta orgeyn baa jirta kudis baa jirta mid walba nidaam buu leeyahay. marka geela isaga orgeyn laguma isticmaalo abaaha lagu isticmaalaa. kelmaddaas ayaa i dhibtay oo waxaan si dhibtay mar haddii aad wixii inaad gudbisana rabto af soomaaliga aad ku gudbinaysan aad faqiir ka tahay ummadda aad la hadlaysaana ummad afkii kaaga aqoon badan ay tahay laazim waa inaad haddii la yidhaahdo baxthi fiican aad ka samaysaa. dabadeedna waxaan go-aansaday inta gabay la tiriyey intaan ka gaari karo qoraal ma jirin da gabayada imika la qoriyay waxaan maxaan ku dhahaa miidiyaha wixii aan markaa meelaha ka helo oo dhan inaan qaybo oon qoro hadda ma kuu dhacday. marka luqada af soomaaliguna xaqiiqatan waa luqo aad iyo aad u waasica oo marka aad eegto mufradaadka soomaaliga iyo mufradaadka ingiriisiga waxaa badan mufradaadka soomaaliga dad baanu haysanay. waxaan xasuustaa markaa waxaa ila soo gashay nin lo odhan jiray ibraahim uurdoox raxmatullaahi caleyh ayaa af soomaaliga aad buu yaqiinay carabigana aad buu yaqiinay. wuxuu dhegeystay markaa hees carabiya buu dhegeystay markaasuu yidhi faqiir weeye ninkaa suugaanyahankeed heestaa tiriyey anigu saa ma idhaahdeen oo muxuu yidhi ninkaasi damcii wa damcuka khasaara baa ku jirtay hamii wa hamuka khasaara wuu soo celceliyey khasaarihiina wuu soo celceliyey damcigii wuu soo celceliyey hamigiina wuu soo celceliyey. anigu intaa imika edegtaa yaruu isku oodan yahay anigu ereyna erey kuma dareen buu yidhi. maxaad odhan lahayd baan ku nidhi wuxuu yidhi ilmadaydiyo hintaaduba eegayo midna aayatiin male waxaad handatiyo waxaan u holladay sawkaahigeeni baaqsaday. saddexdiiba saddex macnoo kala duwan ilmadaydii oo hintaaduba eegayo midna aayatiin ma leh damci wa damcuka khasaara waxaad handatiyo waxaan u holladay sawkaahigeeni baaqsaday. marka waxaan fahmay
inay luqada af Soomaaliga ay tahay haddii alla yidhaha luqo la yaab leh. haddana waxaan arkay heestan maxaan gabaygii odhan jiray alaa ayuha alleylu tawiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka amthalu. gabaygaas waa ma og tahay nin abaana soo kacayo wuxuu yidhi habeen yow dheeri waad dhib badan tahay dharaartuna iima kaa dhaanto iima kala dhigantaan dhammaantiin. waa tarjamaad xarf iyo sideedii haddana gabayo sugaan. marka luqa soomaaliya waxay la dhigdhigaysaa wax yarun ka hooseysa luqa alcarabiya runtii. luqa aad iyo aad u wasica weeye. marka waxaan go'aansaday bal horta dadkaan la hadlaya hadday Soomaali yihiin inaan afkooda kula hadlo. marka dadku in badan markuu nin maxaan ku idhaha Ingiriis soo barbaariye uu yahay 50% luqa eray Ingiriisyaala buu isticmaalaa. markuu qolada Talyaanigu soo carbiye ay yihiin 50% ayay Talyaani. ciday la hadlayaana waa Soomaali. waxaa laga yaabaa fariintii uu gudbinayay iyadoon cidiba fahmin inay meesha ka baxaan. culimadeena badankooda weliba da'yartan culimada ahina markay muxaadaraadka jeedinayaan 60% ama 50 waxay isticmaalayaan luqa alcarabiya. ciday la hadlayaana waa Soomaali. marka waxaan go'aansaday in aan ku dadaalo luqada Soomaaliga. tiina alxamdulillah anigu ma gabiyo laakiin wuxuu ilaahay ii sahlay inaan xifdii karo. markaan aayadda marayana si nasiibun bay warkiiba munaasabadda iigu soo dhici jirtay. waanan jeclahay in dadka luqadooda lagula hadlo waayo fariintaad xambaarsan tahay baa si fiican loo gudbin karaya kolkaa. marka aad baan ugula taliyaa culimada dadka la hadlaysa inay marka hore xaqiibadooda ka buuxsadaan af Soomaaliga. weliba mahmaahyada iyo gabayada. waayo mahmaahda iyo gabaygu waxay kaa buuxinaysaa sentence badan waxaad ka odhan lahayd ayay kuu soo koobaysaa. 3 eray halkii qaadi 30 yaanay kaa qaadan. 3 eray halkii dooni 3 eray halkii dooni 30 yaanay kaa qaadan. abwaan maxaan ku idhaha hadraawi wallahu naxariistay. marka waxaa laga yaabaa 3 eray keliya oo gabaya ama maxaan ku idhaha sugaan kala ah in hadal badan iyo araar badan ay kaa lumin lahayd. marka waa muhiim ummadda aad la hadlayso inaad afkeeda taqaan. jazaak allah khayr sheekh. sheekhana bal gabay haddii aad jirto aad halkan aad maskaxdaada uga jiro oo inta badan sheekh maxamed ku soo dhaca banala yar wadaag. kolley horta gabayadu de way badan yihiin aniguna maan lahayn gabayada ma og tahay. laakiin de waxay ahayd inaad sii diyaariyo oo aan daakiradayda gabay aan haddii alla ku soo dhaweeyo bulshada. waxa uun hadda aan waxuun ka siira xasuusan karayaa haddii ilaahay ka dhigo gabay uu lahaa Timo Cadde raxmatullaahi calayhi markii 60kii la yidhi waxaa la soo dhaweynayaa xorriyaddii ayaa waxaa la yidhi nin walba ha diyaariyo gabaygii oo calanka oo haddii alla yidhaahdo u qaaday oo aqri lahaa. marka gabaygan buu markii hore tiriyey. cabdi idaanna waa tiriyey raxmatullaahi calayhi labada way dhinteen. guddidii markaa garsoorka ahayd ayaa waxay number 1kii siiyeen cabdi idaan welina calankii lama saarin. kabacdi gabaygan kale kaa nasiibka nasaar kaa nasiibka nasaar. marka gabaygan marka hore wuxuu kaga hadlayaa haddii alla yidhaahdo nicmooyinka ilaahay iyo haddii alla ka dhigo ambiyadii iyo haddii alla yidhaahdo buu kaga hadlayaa. ilaahay caadi lahaaye markaas waaska ka wadaya. marka dambana iimaankoon cawareynaya cidaamku ma nafayo calankan ku su'aalay iyo cisigii la socday haddaad caawana siisay casiiskayo waa mahadda ayuu ku soo gabaya. oo gabayga waxaa ku jiray col kaloo madmadow way isku caynad yihiin iyo isticmaarna cunay. marka waxaa loo filayaa raggii guddida ahaa garsoorka de waxay ardaydii ingiriiska
inay ahaayeen markaa halka adigu waa laga weyngareeyey kan dambe marka dambe wuxuu markaa gabaygiisa ku jiray geeraaru waygu ceelo waygu ciida dubaaro waygu caanaha geela way cir horay diraaco way cawskii madowey ilaahay cirka taagaye dayaxiyo cadceediyo xidigaa ku cidaadayow ilaahay caadi lahaaye dhulka caynkan u daadishaye ku culaysiyey buurtoye isagoon cidi joogin casiiskii nebi aadan ka abuuray camuudoe cidhifka bidixdiisana intuu caara ka jeexay cadkii xaawo ka yeelayo ilaahay caadi lahaaye cayaarsiiyey buxuurtoe ceejiyey amarsiiyayow gabay noocaasoo ilaahay sifooyinkiisa